ورسنانا محمد عبد الله halkan wax ku bartay aqoonta bulshada iyo sayniska maxamed waxaan ku weydiinaynaa arrinta ku saabsan qofka haddii amar la siiyo oo la dhaho ka soo qaad qof dil oo kale ama xabad ku riid ama qofka dil maxay tahay waxa ka dambeeya qofku amarku u qaadanayo iyo qofka maskaxdiisa u shaqaynayso oo leeyahay qofka amar inta la siiyo qof kale dili karo maxay tahay wax keeni kara وحصل كويس. وسؤال هذا مهمة. مركا هذا نمك فكر كم سؤال هذا عن راعه سؤال بإيمان يسا أو محوس إذا قف هو من عسكري أما قف وحو دونا بها برشة كتير سنة محو قف كلاسي أحنا الآن وجود ذكريا محو جبوت فل وجود سمين كريا سيدي بيقول لي كريسا حبرقن كاس لكن وحا هوست فوق أرسون وحلي هذا أمر قف كمثل إنه حضر كيسا أنا جو أون جواب هذا الجولة أما قاعدة الكفر لذو هو معنين دونه وحاجرته واحد أركيسا مثلا من عسكرية وحو لي عبو وحو لي حاس gurigiisii magaaladii uu askariga ka ahaa ayaa waxa dhici karta in col weyn uu soo galay marka qof kasta oo bilaadanah maxaa isaga ay u tahay muhiimada koobaad waa inuu difaaco daafacu anfusukum ya wa awlaadukum xitaa quraanka sheegay waa in marka qofkaasi inuu reerkiisii iyo caruurtiisa inuu difaaco laakiin waxaad arkaysaa waxyaalaha cajiibka وعلم اللي هذول psychology social أما social psychology وقاعدة وسمية وحضر كيساني كي أسكري جاها أو أمر نيكي تليهي وأمر سيني أسكرتي يوم بسوي يا تليهي وحولي هاي هوكينا يروحينا صغاتا علبة مش صغري نيكي أسكري جاها وحولي لابينو عقوتي سي دفاعه لكن أمر بودا بصعد أمر بو أيوك صباحية وتليها مركو أمر بو صباحه تليه بحرك كتير سيدك ديوير هذو هالكاس وح وإج عدو أيام مريا أو وأسكرتي أمر كسيو إن كمان تود بسودياريان إن أي محمد كده هدايا هو كودا أي ديار كريستان هالمر ayaa waxa laga yaabaa meeshaas ama meeshii uu taliyuhu farta ku fiiqay in habro caruur dad aan waxba galabsan inay marayeen iyadoo siis sidii ay tahay arrintu ayuu taliyuhu wuxuu oranayaa amar intuu siiyo askartii ayuu leeyahay waa cadowgii hubka ku fura meeshiiba caruurtii iyo dadkii waayeelka ahaa oo dhan lagu laynaya ninkaas askariga ee hubka sitay oo laayay dadkaasi waxa laga yaabaa marka aad eegtid in uu isagoo arkayay inay dadkaasi cadow ahayn oo dad masaakiina oo meesha marayay ay ahaayeen oo ay u caday inuu haddana amarkii ka awood badiyay oo amarkii uu raacay haddaba waxa weeyaan qaacidadu waxay ku soo ururaysaa waxaa jiray nin oo Maraykan ah oo la oran jiray Stanley Milgram شركة أيها واحد عدد دجال كيلا بعد نيل أورنجري نيل أو جرملة أو نازلين كم دها أيها واحد أورنجري أيخمان أدولف أيخمان كان مجلس فورنا ميسا هنا خلد يا لا بام مجلس هوري مركا أيخمان واحد لقي جيروسالم حكومتي أما جبوت فلكي ويهود كسمي ayaa waxa loo rabay in loo ogaado sidee ay u suurta gashay inuu Eichmann intaas oo milyan oo yuhuud u leeyahay Eichmann markii maxkamadda la soo taagay ayuu wuxuu yiri waxaan anigu sameeyay ma jirto kaliya waxaan raacay amar xaakimadii waxay yiraahdeen amar sidee baad adiga oo arkaya dad aan waxba galabsan oo
dumar iyo caruur iyo waayeel leh aad gaas iyo meelihii maxaan ku dhahay holocaust lagu samayn jiray sidee baad amar u siisay in dadkaas lagu laayo dad aan hubaysnayn weliba wuxuu yidhi anigu waxaan raacay qaacidadii taliyahayga oo ah maadaama aan askari ahaa waxaan raacay qaacidadii ninkii iga sarreeyey marka anigu markasta waxaan isu arkaa qof aan dembi gelin dadkii cilmi baarayaasha ahaba waxay su'aal ka keeneen ninkaas inuu hadalkiisu saxan yahay iyo inuu khaldan yahay maalmaha kelmada ayaa ninkan oo magaciisa Stanley Milgram la yiraahdo ayaa wuxuu sameeyey si uu u tijaabiyo fikirka ninkaas uu dabaqay oo ah isagu isu haysto waa ninkii wax laayay yaa wuxuu isu haystaa inuu sayso waxba dilin oo uu yahay qof bari ka ah wixii dhacay waayo wuxuu isagu taagan yahay amar baan ingiliisiye shaqadaydii baan gutay ilbaabka haddii lagu yidhaahdo fur waad furaysaa xidh haddii lagu yidhahdo waad xidhaysaa wax kale oo aan sameeyey marka cadaawadii ma dhexayn dadkan aan laayay ee amar ayaan ku dilay markii cilmi baarista ayaa waxay sameeyeen jaamacadda oo Harvard ayaa la tegey dhalinyaro ayaa la soo qaaday arday ah qaacidada la yiraahdo Milgram concept oo social psychology ayaa markaa la dhisay waxay ka dhigan tahay dhalinyaro la soo qabtay koronto been awaala ama aan ahayn koronto sax ah ayaa qof oo muraayad uu qofka kale ka arki karo ayaa lagu xirxiray ninkii professorka ahaa ayaa ardaygii oo meesha fadhiya ayuu wuxuu ku yiri qofkaas oo ma arkaysid korontada aynu ku xirno waa in markaan ku iraahdo 10 volt ama 20 volt ku dar ya adan u jixinin qayladiisa ama waxa ka soo baxay laakiin aad amarkayga raacdo laakiin waa koronto aan ahayn sax oo been awaal waa placebo wax la yiraahdo concept of placebo arday badan ayaa qofka markuu korontada 20 lagu daraba uu qayliyaa iga daa xanuunkii ayuu maqlayaa ardayga laakiin waa xanuun been qofka kalena waa qof oo ciyaaraya ama roolkii uu ciyaaraya ma wax sax ardaygii wuxuu gaarsiinayaa heerka xanuunka qofku uu ka sii daro oo uu yiraahdo waan dhibanayaa warigada war hay dili war hay igu celin haddana macallinkii oo ajooga ayaa wuxuu ku leeyahay ardaygii ku dar muhiimaddu waxay noqotay in cilmiga social psychology inuu approval ama caddayn uu u noqon karo in qof uu dili karo ama uu samayn karo ama uu ku gaboodfali karo qofka ka sarreeya hadduu amar siiyo marka soomaalida ayaa waxay odhanaysaa matalan ma aan ka filaynin ninkaasoo Soomaaliya inuu saas u geli karo ma aan ka filaynin hebel oo muslimiin asaas ku geli karo hebelka muslimka haddii amar la siiyo amarka ayaa ka awood weynaanaya muslimnimadiisa iyo waxyaalihii uu aaminsanaa ee dhaqanka ahaa marka waa inay u noqotaa fikirkaas wuxuu dabaqi karayaa gaboodkalada Soomaalida dhulkeeda ka dhaco dhan inuu noqon karo mid su'aal la weydiin karo oo falsafadaas mid ku dabaqmaysa ma tahay mise ma waxaan u malaynayaa su'aashaad kaaga jawaabay askarigu haddii la amro amarka ayaa ka awood weyn bini'aadanimadiisa niyadihiin waxaa jirta waxa la yidhaahdo déserteur de conscience ama qof oo bini'aadanimadiisa shakhsiga ah ee gudaha isaga ama maskaxdiisa ku jirta ay ka awood weyn tahay amar oo dili kara intee ayaad maqasheen niman oo baylooda ah oo la yiri meesha soo baabiya oo ka goostay dalkooda ya marka waxaad arkaysaa awsnaame bay tiraahdaa Jarmalka ama maxaan ku raadayay waa
waxyaalo dhifa amba boqolkiiba 3 ayaa dadka bini'aadanka laga heli karayaa qofkiida amarka laakiin cilmiga social psychology-gu wuxuu tusayaa wuxuu hoos imaanayaa xitaa behaviorist ugu celiya ama waa wax condition ah ninka askariga muxuu naagtiisii carruurtiisa u ilaalin waayey oo uu ilaalinayaa ama uu qaadanayaa si loo laayo dad masaakiina haddii uusan amarku ka awoodin anigoo carruurtayda khatar ay ku jiraan ayaan waxaan raacayaa ciidamo baabuur saaran waxaa laga yaabaa 3 bilood inaan mushaar qaadin 4 bilood inaan carruurtayda aan waxba siin laakiin haddana qoriga iyo booshka iyo amarku iga awood weyn السلام عليكم ورحمة الله